بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan idin salaamayaa asxaabta qaaliga meel kasta dunida kafeeda aad ka joogtaan. waa mar kale iyo live channel oo maanta idin wada alaabtaas waa subaga saxinka maasha Allah udgoon caraf waxaan ka sameeyay waa xawayaan batarkaas kolay dadka maaragtay qurbaha jooga waa laga yaabaa inay batarkaas helaan batarkaas ayaan ka sameynayaa insha Allah ila socda videoga bilow iyo dhamaystir. halkaa waxaa ii yaala digsi waxaan ku ridayaa batarkii oon slice ka soo dhigay. batarka waa batarka aan isqada lahayn insha Allah waxaad ka dhigan doontaan slice isla eg haddaad doontaan keligiis oo sidiisa isagoo u kuusan waad ku ridi kartaan insha Allah isla meesha unbuu soo baxayaa. laakiin waxaa fiican inaad xoogaa aad yaryareysaan oo slices laaleega ka dhigtaan. subagii lo'da ahaa specialka ee udgoona oo saafi sixin ah oo aad og tahay ayuu soo bixi doonaa insha Allah. gurigaaga ku samayso maxaabad meel kale uga raadsan. asxaabta qaaliga ah batarka dabka aad u shidayso waa dab yar. dab badan haddaad ku shidid markii buu madoobaanayaa subaga marka iska ilaaliya insha Allah. marka uu soo dhalaalo waad la socon doontaan insha Allah. marka uu dhalaalay saas ayuu soo baxay waad aragtaan asxaabta qaaliga maasha Allah. weli ma dhawo weli muu dhalaalin insha Allah. caanaha iyo subaga ayaa kala bixi doona marka ay kala baxaan ayaan arki doonaa sida ay soo baxaan insha Allah. waxaan ku darayaa waxaan haystaa geed xamar ama reexaan carabiga waxaa la yiraahdaa geedka reexaanka. wax badan kuma darayaa wax yar ayaan ku darsanayaa caleemo yar baan kasoo goosanayaa. haddii aanad geedka helaynin faraha ka qaad waa geedka xamariga la dhaho insha Allah. haddii aanad helaynin iskaba dhaaf. hadhow subaga marka aad shiishid oo subaga maaragtay caanaha iyo batarka ay kala baxaan ood dhulka dhigtid isagoo kulul toon iyo basal iyo xaaxyaro haylaad isku tumaysaa insha Allah. subaga markaad dhulka dhigtid weeyaan isagoo dabka saaran ku ridina hal mar baad ku ridaysaa alaabtii oo isku tuntay kadibna waad ka saaraysaa. haddii doontii waxaas aad necab tahayna sidiisaa ku dayso sidiisaasba subag sixina weeyaan oo udgoonkii urtana wuxuu ku leeyahay subagii sixinta ahaa ee la yaqaanay ayuu noqonayaa. aniga waxaan ku darayaa geedka yar wax yar ayaan rabaa inuu udgoon ii noqdo insha Allah. udgoon buu ka dhigayaa wax kaloo u taraya malaha. haddaad doontaana waad ka dayn kartaan haddaad doontaana waad ku daraysaan ikhtiyaarka idinka iskale qof kasta ikhtiyaarka isagaa leh. laakiin maasha Allah subagan waa subag la isku raacay asxaabay soo tijaabiyo insha Allah. waa subag cajiib ah oo saafi ah udgoonkana waad yaabaysaa. soo tijaabiya subageena caadiga xoolaha saas ayaa loo sameeyaa. caanaha waa burcadkii caadiga ahaa waa burcadkii. batarkan ayaad ka samaysan kartaan. waxaad ka samaysan kartaan weliba batarka kale ee isagana maaragtay roodhida la mariyo slice kala marsado isaga laftirkiisa waad ka samaysan kartaan. waxaad kaloo ka samayn kartaan caanaha whip creamka ama double creamka. caanaha double creamka waa inaad banaanka dhigtid kadibna way kala fariisanayaan. markay kala fariistaan caano iyo fud ay kala noqonayaan. biyo iyo fud baan ka wadaa. biyaha ayaad ka daadinaysaa insha Allah. markana idin soo gelin doona isagana. laakiin subaga sida ugu fudud waa kan batarka oon dhib iyo hawl iyo caano la baqiyo iyo waxa aad sugaynin. maasha Allah tabaarakallah asxaabta qaaliga sidaas ayuu ku soo baxay markuu inoo soo karay. weli wax yar ayaa u dhiman insha Allah. aad u muurooda dhalaalin insha Allah. aad caanihii iyo subagii weli may kala bixin way kala bixi doonaan insha Allah. siduu ka soo baxo ila arka ila soo tijaabiya udgoonka kale aniga soo tijaabiya idinkuna soo tijaabiya maasha Allah tabaarakallah. burcadka wadanka dadka jooga burcadka ayaad ka samaysan kartaan. burcadka dabka saaraysaan caanaha iyo subagana waad kala dhalaalinaysaan. asxaabta saas ayuu ku soo baxay waad aragtaan quruxdiisa kalarkiisa waad aragtaan maasha Allah tabaarakallah. haddaad doonaysaan inaanu kaa fariisanin
wax yar oo beenbeena oo saliid ayaad ku darsanaysaa olive